Kulankan oo ujeedadiisu ahayd xoojinta baaqyada nabadda iyo ka shaqaynta horumarka Galmudug ayay kaga qayb galeen magaalada Dhuusamareeb. Siyaasiyiin, mas'uuliyiin xilalka haya Galmudug iyo qaar ka mid ah bulshada caasimadda. Gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa ugu horeyn kulankan baaq ugu diray cid kasta oo ku howlan xasilooni daro laga abaabulo deegaanada Galmudug. ummadda maanta Dhuusamareeb iskugu timid iyo saxmadda ka jirtay meel aan loo mari kara xataa inaan la arag iyo sidii hore u ahayd intaas waa loo wada jeedaa. intaas haddaan haysano waxaan u baahannahay inaan kobcino oo intaas la siyaadiyo la ilaaliyo. uma baahnin dagaal, barakac iyo qax iyo shiddo. taa horta waxaan rabnaa inaan horumarka intaas inaan uga warramo. ciddii wax mudan waxaan leenahay soo dhawow, annaga ka hortagayna, annaga guryahooda keenayna, annaga amnigooda damaanad qaadayna haddii Ilaahay yiraahdo. hadday madax noo noqdaan annaga la shaqaynayna, qof kasta nabadaan ugu yeeraynaa. waxaan leenahay ciddii wax si ku yihiin si nabada wixii ka qaloocan aan ula toosinayna haddii Ilaahay yiraahdo. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada kulankan ka qayb galay ayaa si guud u xoojiyay in loo midoobo nabadgelyada iyadoona ujeedku yahay ilaalinta nidaamka dawliga ahi. waxaan rabnaa nabad. ciddii nabadda ka soo horjeedana waxaan leenahay nabada naas la nuugale, nabada naas la nuugale, nabadda la adkeeyo. xaq wixii nabad keenaya ha lagu dadaalo, wixii ummadda anfacaya ha lagu dadaalo. ninkii doonaya dalku dadka waa ka dhaxeeya. waxaan halkaan ka taageeraynaa nabadgelyada, ayaan halkaan ka taageeraynaa. waxaan ka soo horjeednaa cid waliba oo isku dayaysa qalqal inay abuurto. heer gobol iyo heer degmoba waxaan nahay maamulka Galmudug oo dadka reer Galmudug ah oo deegaanka u dhashay degmooyinkiisa ayaan ka mid nahay. waxaan u baaqaynaa ummadda islaamka nabad inaan doonayno. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Axmed Faafaale, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Galmudug Cilmi Cali Ganey iyo Wasiirka Waxbarashada Maxamed Xaanshe Dhoore ayaa ugu dambeyn ku baaqay in abaabul kasta la isugu geeyo la dagaalanka Al-Shabaab isla markaana laga fogaado wax kasta oo curyaamin ku noqon kara horumarka dowlad goboleedka Galmudug. ninka marka raba inuu maanta waqooyi anoo bar iska ilaalinayna inuu inta galbeed ciidan ku abaabulo magaalada ku soo weeraro, waxaan leenahay dhabarku dadka ka toogana. marka dhabarka inuu ka toogtana inaad fahantaan inay saxayaan odayaashu fahmaan, runtii waa ku dhiirigelinaynaa, waana ku ammaanaynaa qaybaha bulshada. waqti yar baa ka haray oo 2 sano ka yar. ha u soo diyaar garoobeen, doorashaha galeen, haddii la doortana ha xukumeen, dadkuna waa adeecayaan. wixii intaas dheer dowladda ayaa u xilsaaran difaaca shacabka iyo difaaca Galmudug. waxay xaq u leeyihiin shacabkan meesha jooga dowladooda ay doorteen inay difaacdo. marka waxaan leenahay waxaan ku baaqaynaa inaan dagaal ka dhicin Galmudug. waxaan ku baaqaynaa aqalku inuu taliyo. waxaan ku baaqaynaa in aakhire la fiiriyo. waxaa la rabaa in ay dadku isaashan karaan. waxaa la rabaa in magaaladan danteeda aan ka hadli karno, inaan ka hadli karno horumarka ka socda, aan dhihi karno waa horumar anagu aan leenahay. ciddii xukun rabta waa inay from Hobyo ilaa iyo Gurceel ilaa iyo Balambal qof rabta inay xukunto waa inay noqoto, waa inaysan noqonin qof Gurceel iyo Dhuusamareeb kaliya u socoto. sida kaliya ee lagu xukumi karo from Hobyo ilaa iyo Gurceel ilaa iyo Matabaan meesha la yiraahdo Balamballe lagu xukumi karana waa in loo soo tartamo oon xabad lagu raadin xilka Galmudug ugu sareeya, kadibna sidaas ay noqoto dawlad loo dhan yahay oo qof kasta oo xilkeeda. Ali Tali Cabdi, Hirshabelle TV, Jowhar.